Waxaan muuqaalkan si kooban uga jawaabi doonaa su'aashan soo laalaabatay taasoo dhahayso maxaa keeno in lugta layga qabto mar walba caadada iigu dhacdo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. Lug xanuunka xilliga caadada waa arrin dumarka ku badan, waxaana keeno badanaa laba arrimood. Midda koowaad waxay ku timaadaa si dabiici ah oo aan cudur ahayn, taasoo ka dhalatay isbedelada hormoonada xilliga caadada dhaca, sida markii la soo daayo dheecaan loo yaqaano prostaglandin oo hawshiisu tahay in murqaha minka giijiyo si xuubka gudaha kaga dahaaran u fuqo, kaasoo qayb ka ah dhiigga yimaada xilliga caadada. Murqo giijintaas waxay u gudubtaa murqaha miskaha ku jiro ilaa lugta, weliba lugta bidix u badan. Sidoo kale xilliga caadada jirku wuxuu ceshtaa biyaha oo kaadidu way yaraataa, taasoo keenayso in murqaha ka agdhow minka ay bararaan, taasoo xanuunka si dabiici ah u siyaadiso. Sababta labaad waxay tilmaan u noqon kartaa laba ciladood oo kala ah burada loo yaqaano fibroid oo makaanka ka soo baxdo, iyo xanuunka minka ku dhaco ee loo yaqaano endometriosis. Sida awgeed, haweenka aad uga sheegto lug xanuunka xilliga caadada waa inay iska baaraan labadaas ciladood si looga shaki baxo. Haddii aad ciladan si joogto ah iskugu aragtay, dhibna kugu hayso, fadlan la soo xiriir dhakhaatiirta ku takhasustay cudurrada haweenka oo aad xarumaheena ka heli kartid maalin walba. Fadlan faafi fariintan, waana mahadsantahay.